cali guudlaawe ayaa maanta soo afjira caqabado muddo badan ka haysta gobolka Hiiraan tan iyo doorashadiisii taasoo qayb ka ahayd diidmada maamulkiisa hal sano iyo bar ka badan oo laga hortaagnaa beledweyne inuu yimaado taasi waxay suurto gelisay jamhada ka asaasmay gobolka iyo tabashooyinka beelaha oo isii tiraya marba marka ka dambayso. Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta kulan la yeeshay nabadoonnada waxgaradka beesha Xawaadle oo tabasho weyn ka qabay dhismaha maamulka Hiirshabelle taan iyo doorashada cali Guudlaawe oo wehelinaya ku-xigeenkiisa ayaa saacado badan wada hadal kadib shaaciyay in heshiis rasmi ah laga gaaray diidmadii tabashadii beesha Xawaadle ay ka qabeen maamulka Hiirshabelle waxaana la sheegay in hadda kadib ay ka wada shaqayn doonaan labada dhinac midnimada iyo wadajirka Hiirshabelle. inkastoo heshiiska la soo bandhigin haddana xogaha ay lahayn ayaa sheegaya in qodobadan ay hordhigeen odayaasha cali Guudlaawe in caasimada laga dhigo Hiiraan oo noqoto beledweyne 2 in laga dhigo Hiiraan 2 gobol 3 in qaybsiga xildhibaanada dib lagu noqdo awood qaybsiga 4 dib u eegis lagu sameeyo dhammaan awood qaybsiga maamulka Hiirshabelle maadaama tabashada ugu badan ee waxgaradka beeshaasi halkaas ay ka taagan tahay. cali Guudlaawe madaxweynaha Hiirshabelle ayaa aqbalay soo jeedinta odayaashaas ee qodobada inta badan si loo tirtiro tabashadii ay qabeen. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Hiirshabelle ayaa lagu sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray tabashada iyo diidmada beesha Xawaadle ay ka qabeen maamulka Hiirshabelle. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in nabadoonnada iyo waxgaradka beesha Xawaadle iyo maamulka Hiirshabelle ay heshiis ku gaareen maanta wixii ka dambeeya in laga wada shaqeeyo midnimada iyo wadajirka maamulka Hiirshabelle. khilaafka beesha Xawaadle iyo maamulka Hiirshabelle ayaa yimid kadib markii beesha Xawaadle laga wareejiyay xilka madaxweynaha oo horay u haysteen isla markaana lagu bedelay ku-xigeen taas oo beesha si weyn uga hortimid. arrintan ayaa imaanaysa kadib socdaalku dhawaan beledweyne ku soo gaaray madaxweynaha Hiirshabelle Cali Xuseen Guudlaawe taas oo markii tan uu soo gaaray kulamo kala duwan oo la qaadanaya saraakiisha ciidamada waxgaradka iyo mas'uuliyiinta ku sugneed gobolkaasi. General Xuud ayaa tira dhowr jeer waxa uu horay uga dhawaasho ah hogaamiyaha kacdoonka gobolka Hiiraan in la qiyaamay kacdoonka isla markaana fila Soomaaliya ay dib weyn u dhigtay Muqdisho ay ka dejisay si u geysa cali Guudlaawe beledweyne taasoo suurto gelisay ciidamadii ay dhawaan dawladda Soomaaliya magaalada beledweyne u dirtay kuwaas oo hore cabsidii looga qabay kacdoonka ciidamada gobolka Hiiraan oo is-abaabulay meesha ka saaray. tani waxay u tahay fursad weyn cali Guudlaawe Xuseen waxaana dhawaan la guda gali doonaa doorashada kuraasta golaha shacabka ee 26 kursi oo taala magaalada beledweyne taasoo durbadiiba dhankeeda hadalhayn xoogan ay ka dhalatay maadaama la sheegay inay gacanta ugu jirto fila Soomaaliya shakhsiyaad gooniyana in lagu soo saaro la doonayo. xukuumadda ra'iisul wasaare Roble oo garwadeen ka ah iyadoo doorashada ayaa la sheegay in 26 kursi aysan door weyn ku lahayn maadaama gacanta ay ugu jirto madaxweyne Farmaajo la rabana in shakhsiyaad daacad u ah fila Soomaaliya lagu soo saaro. lama oga waxa ka dhalan karo iyo khilaaf cusub oo kale inay horseedi karto balse ergey uu soo diray ra'iisul wasaare Roble oo tiro wasiirro iyo xildhibaano ay qayb ka ahaayeen cali Guudlaawe Xuseen ayaa wajigabax kala kulmay horay intii jawhar ugu sugnaayeen. xukuumadda ra'iisul wasaare Roble horay waxa ugu baaqdeen ciidamadii la geeyay beledweyne dib looga soo celiyo ma jirta arrintaasi wax dhagtala u siiyay waana tan suurto gelisay in cali Guudlaawe Xuseen imaatankiisa beledweyne heshiisnu la gaara beesha Xawaadle oo horay hal sano iyo bar doorashadiisii ka soo wareegtay ka hortaagneed inta ugu badan beledweyne. General Xuud oo dhankiisa ah hogaamiye kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa dhawaan warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in wada hadal uu diyaar u yahay balse qiyaamo qaran ay tahay tegitaanka cali Guudlaawe Xuseen ee beledweyne. waxaa meesha ka baxday kacdoonkii gobolka Hiiraan maadaama waxgaradkoodii laga heshiiyay dhacda arrintii taagneed. maqaamkii kacdoonka uu raadinaya General Xuud ayaana beledweyne laga gaaray taas oo Muqdisho fila Soomaaliya si saaxiibtinimo ah uu ku kaxeeyay oo ku geeyay taliyaha ciidamada dhulka General Maxamed Tahliil Biixi. inta ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintan gaarka saaxiibayaal hadduu muuqaalkan ku soo gaara si share garay saaxiibadada kale la sii wadaag boggeena Soomaali Baraysna ku soo biir page-keena follow noode YouTube-kana sidoo kale booqo mahadsanidin.